السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جو محمد مؤمن علي أساسا سكيل هاب. سكيل هاب سدا ugu barateen waa platform ay lumareed Soomaaliyeed ay ka helaan xirfado kala duwan oo ay dunida u raadsan jireen ama dad kale oo ajaanib ah inay u raadiyaan oo ay luqadooda fahmi karin. waxaa idin soo kordhinay program cusub oo ku saabsan e-commerce ama yani ganacsiga online-ka ah. programka waxaa ku baranaysaa sida yani products aa u keeni kartid Alibaba ama maxaa la dhahaa Amazon, eBay, shirkadahaas inaad products aa ka keentid aa Soomaaliya keentid. Programka waxaa kala qaadi doonaa 3 qaybood. qaybta koowaad waxaa waaye inaad raadisid yani product kugu habboon ama yani wax loo yaqaano niche inaad dooratid ama yani inaad market gooni aad doorato, tusaale marketka dumarka inaad aadid. kadib inaa supplier ama qof yani productigaas qiimo jaban kaa siinayo. waxaa laga yaabaa inaa qof arday aad tahay ama qof aa shaqaysan aad tahay inaa heshid productiga. markaa heshid waxaa ku bari doonaa yani qaabka Soomaaliya aa ku keeni lahayd haddii shipping ay ahaan lahayd ama haddii ay ahaan lahayd by air oo diyaarad aa ku keenaysid. sidoo kale waxaa ku bari doonaa sida website e-commerce aa u dhisi kartid yani functionality kala duwan leh, tusaale in qofka websitekaas uu alaab ka soo dalban karo, yani payment gateways leh, ka saacida in yani email marketing tools in dadka website-kaaga soo booqdo xogtooda aa heli kartid si beri ari marketing aa ugu samaysid. sidoo kale qaybta ugu dambeysa waxaa ku bari doonaa yani wax loo yaqaano social media marketing, sida ganacsigaaga aa dhanka online-ka aa ugu horumarin lahayd adigoo isticmaala aaladaha kala duwan ee social media, aaladaha kala duwan sida Facebook, Instagram, Twitter, xaysimaha kala duwan inaad samaysid ee Google. qaybaha ugu dambeeya barnaamijkan waxaa ku bari doonaa yani sida aad sales badan aa u samayn lahayd alaabta aad keentay. sidoo kale waxaa ku bari doonaa yani xisaabaadka, sida loo xisaabiyo yani faa'iidooyinka iyo khasaaraha, kadibna pricing loo sameeyo. haddii programkan aad rabtid ku dhufo linkigan hoose si aad isaga diiwaangelisid. wassalaamu calaykum waraxmatullahi